golaha guurta Somaliland ayaa guddi 11 mudane ka kooban u saaray in ay dhexdhexaadiyaan colaadda ka taagan deegaanka shidan oo halkaasi ku dhex martay laba beelood oo walaala isla markaasina muddo taagneyd. Fadhi maanta yeesheen mudanayaasha golaha guurta Somaliland oo guddidani lagu saarayay ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha guurta Somaliland Saciid Jaamac Cali oo isagu ku dhawaaqay guddidaasi 11 mudane ah ee tagi doonta deegaankaasi shidan. hadaladiisina waxaa ka mid ahaa deegaanka shidan koow Axmed Daahir Jirde gudoomiye, Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan, Cali Maxamed Huruuse, Cumar Nuur Xasan, Maxamed Faarax Axmed, Axmed Xaaji Cabdi Xuseen, Xasan Cumar Axmed, Diini Cabdulaahi Handi, عول عثمان محمود، خضر حسين سهل، عول عبد الله عيديد. ayaa waxay dhexdhexaadin doonaan labada beelood ee dagaalka ku dhex maray deegaankaasi shidan isla markaasina waxay warbixinta ku soo celin doonaan goloweynaha guurtida oo ay uga warbixin doonaan